بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانيقو ورسن شيخ محمد جانل كداونيسان وسيروخ شيخ جانل وحان ليهي دمانتي سو دوادا أصحابتيدا بريهان وان كمقنا هودا مسو قلين وايو مشغولك الدونك الله اسكن نقضي وحان إذن ليهي رمضان مبارك ميلكستو الدونك كجوكتان عافي إيه عافي مدبن إلهي جير الرحمن هنوغ بريا رمضان كان رمضان كيسنا إلهي هنوغ سيمو كان إلهي دنب داف هنوغ سيو إلهي وحان كبرينا رمضان مقبولة إنو نوغ ديغو إلهي نغا أقبله وحان إلهي وبرغرام كيني أها وارد ككالتغي يا عرورتي محاك لهايستو وارد ككالتغي يا عرورتي محاك لهايستو وبرغرام آن أوغا هادلي لبقى يبادو هرا qaybtana waa qaybtii saddexaad oo aan raba inaan ka hadlo ayada oo runtii meelo badan la iiga soo celiyay jawaabo hadallo badanna aan ka helay maasha allah ilaahay khayr fara badan ha siiyo sida qolal badan oo lagu sheergareeyay aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa maasha allah nasiib baan waxaan u yeeshay in aan ka hadlo waalidka kala tegay iyo carruurtooda dhibaatooyinka ay carruurtu markaa soo maraan guriga kale ee la geeyey ee aabbaha Soomaaliyeed uu carruurtiisii geystay iyo reerkiisii oo uu u geeyay carruurtii maxaa kala qabsaday carruurtaasi maxay noqdeen korriimadoodu maxay tahay niyadoodu maxay tahay waxbarashadoodu maxay tahay qalbigoodu ma yahay qalbi wanaagsan mise waa qalbi cuqdad ku jirto qalbi xanuunsan qalbi aan marnaba caafimaad qabin waxyaalo badan bay la kulmaan carruurtaas waxyaalo badan buusa aabbahood uga warhaynin uusan ogeyn waxaa dhici karta hooyadu Soomaaliyeed saan hore usoo sheegay in aan carruurteedu ninka qaba uusan si xun u fiirin karin ama uusan waxba u geysan karin oo ay ka xigto in ay carruurteedu nolol fiican ugu noolaadaan ay asagu hilmaami karto iska dayn karto carruurteeda si ay u haysato laakiin aabbaha Soomaaliyeed taas cagsigeeda ayuu sameeyaa oo ah in carruurtiisu uusan ka warhaynin laakiin reerkiisii uu markaa gacanta ku hayo uu ka warhayo laakiin carruurtu aan la danaynin la fiirinin la eegin carruurtu dhibaato badan bay maraysaa dhibkaas lama qaybsatid adigu kama warhaysidba carruurtu waxay maraysaa rafaad badan kama warhaysid adiga waxaa laga rabaa inaad hoos u eegtid aabbaha Soomaaliyeed baa laga rabaa inuu ilmihiisa hoos u eego fiiriyo cunugaaga haddaad la sheekaysatid maskaxdiisaad korisaa haddaad ka dheeraatidna oo aadan la hadlinna maskaxdiisaad dishaa ku xisaabtan marka maskaxda cunugan aad korin lahayd aad kor u qaadi lahayd qofka dilaya inaad adiga tahay niyad jabka ugu horeeya inaad adiga siinaysid cunugaa inaad cunugaas ka dhigaysid cunug aan horey u soconin cunug aan waxba baranaynin cunug aad ku caayaysid inuu doqon yahay inuu nacas yahay inuusan waxba qabsan karin inuusan waxba samaysan karin muxuu aaminayaa cunugaas wuxuu aaminayaa inuu cunugaas waxba qabsanaynin adduunka intuu taagan yahay laakiin haddaad madaxa u salaaxaysid haddaad wejiga ka tirtiraysid haddaad hoosta soo gashanaysid hadda waxa adiga lagu siiye aad leedahay ilmahaygii ma la siiye oo aad ka warhaysid cunuga wuxuu ku ogaanayaa aabbo buuxiyey booskii hooyo iyo booskii aabbanimo labadaba buuxiyey laakiin haddaa cunugaaga aamini weydo waxa uu kuu sheegana aad ka beensatid runtiisii aad garan weydid beentiisana aad garan weyday wuxuu cunugaas isku difaacayaa waxyaalo badan oo uu naftiisa isleeyahay kaga badbaad ibni aadankan wuxuu baranayaa tuuganimo wuxuu baranayaa dhibaato oo dhan waxa baray waa adiga waxa baray waa aabbaha Soomaaliyeed ee carruurtaa qaatay haddaad doontid de hooyadood way dhigtay way xoortay way tuurtay because asbaabo badan baad samaysan kartaa oo aad uga bixi kartid
caqabadan ku hor taagan oo ah maxaad u tartay carruurtaada. waxaad islahayd carruurtaadu tarbiyad fiican u yeelo, si wanaagsan u kori, si aysan hooyadood u korin lahayn adiga u korso, laakiin ma aysan noqonin. waxay noqotay inay ilmihii adigu kaa cararaan, inay ilmihii adigu ku diidaan, inay ilmihii ka doorbidaan inay bannaanka u baxaan. waayo gabar yar oo guriga joogto markii loo adeegsado sida gabaraan guriga ka dhalanin ama guriga laga dhalin oo kale, haddana garaac loogu daro oo dil loogu daro, haddana cay loogu daro, aflagaado loogu daro, aanan waxbarashona loo diraynin, ilmahaas yarkaa qalbigiisu muxuu noqonayaa? mararka qaarkood waxay been ka sheeganayaan waalidkood si ay naftooda u difaacaan. hooyadooda oon weligood waxba dhihin baa waxaa laga yaabaa inay been ka sheegaan oo ay dhahaan hooyadeen baa saana tiri, laakiin inaysan dhihin baa dhici karto macquula. laakiin ayagu ay naftooda ku difaacayaan. waxaa la rabaa gabadha Soomaaliyeed ee guriga joogto ee hooyada ah inay ilmaha eegto, dibna u fiiriso. berri waxa qabsan kara iyada ma ogo. qofkan bini aadan weeye, waa xanuunsan karaa. qofkan bini aadan weeye, waa waalan karaa. qofkan bini aadan weeye, waa dhiman karaa. intaba inaad inta soo dhigatid, ibni aadankana aad weji fiican kula dhaqantid, noloshaada ay noqoto nolol ummadda habi ku ah, nolol ay noqoto waxa aad haysatid waxaad ku faraxsan tahay ay noqdaan, aad noqotid qof bulshada aan ka dhex baxsanayn, ee ah qof bulshada ku dhex jirto, la noolaan karto, berri caqabad walboo hor imaatana ka gudbi karto. laakiin haddaad isdhahdid aabbaad haysataa, ninbaa ku qabo guriga kuu joogo, wax walbana waad heli kartaa, oo markuu dhinto yaa ku siin doono? ku xisaabtan. dadkan aad xumaynaysa berri inaad mudan doonto in kale ilaahay baa garani. waayo gacan la barkanayo allaha raxmaankaa garanayo. qofka bini aadanka wanaag gasho ha kuu gudo berri, ha ku ogaado, ha kula socdo, ha kula noolaado. isku day adiga inaad qofkan soo jiidan kartid. bal ilmahaaguba la dhashayba, waa walaalkood, meelkaa ma jiro. carruurtaadii buu la dhashay, waalid baad u tahay, hooyaa tahay, waalid baad u tahay oo dhan walbaad waalid oga tahay. soo jiidashada ilmahaaga aad ku samaynaysid ee hooyanimada aad kuwaaga u muujinaysid baa la rabaa kuwaana inaad u muujisid. haddaad aragtay inuusan ninkaaga wax dana ka lahayn carruurta, adigaa la isku dayaa inaad soo jiidan kartid. adigaa la isku dayaa wanaag badan inaad tusi kartid. adigaa la isku dayaa inaad ka dhigtid ilmahaaga oo kale. marka ayada a kuma hilmaamaya cunugaas. haddaad dhimatid wuu kuu ducaynayaa, haddaad nooshahayna wuu kuu dadaalayaa. laakiin ha isku dayin inaad cadownimo ku beerta ilmahaas, colaadna aad u samaysid, nacaybna aad qalbigooda gelisid, ay adiga ku nacayaan. waxaa laga yaabaa magacaaga xitaa inay mararka qaar haddii lasoo qaada ay ku nacaan, because dhibkaa u geysatay baa dhib ahayn. ilmaha iyo aabbahood ha isku dirin, ha iska horkeenin. cunugaagaa saan yidhi, cunugaagaa i caayay, cunugaagaa kani dhahay, cunugina la dilo, hortaada lagu garaaco, adiga u lagu dhiibo lagu dhaho adigu garaac, hoo adigu garaac, iska celi, adigu dil. cunugaa adigu caaysay oo adigu aflagaadaysay, haddana aabbihii oga hormartay, aabbihii uu ku yidhi dil oo garaac. cunugaas ma kulata inuu ku jeclaanayo? kuma jeclaanayo wallaahi alcadiim. ma kula tahay eedinimo inuu kuu tixgelinayo? maya wallaahi kuma tixgelinayo. waayo adaa colaad ku beertay. ilmuhu waa hadba sa adiga kula dhaqantid. kuwaaga wanaagaad ka filaysid baa kuwa islaameedna laga filaa. dariskaaga wanaag ka fil, wanaagna ku samayso. bulshadaada wanaag ku dhex joog, wanaagna ka samayso.
waxa adigu samaysatid bay ibni aadanka kugula dhaqmayaan, ilmahaaga kugula dhaqmayaan, dadkaagu kugula dhaqmayaan. laakiin haddaad tahay qof xun, xumaantaada adigu unbay kugu ekaani, dadkuna way isu kaa sheegayaan. isku day marka ilmahaaga saad u jeceshahay kuwa guriga kula jooga walaashay inaad u jeclaatid, inaad ilmahaagoo kale ka soo qaadid. waayo adaa reerkan soo galay, adaa soo raadsaday, adaa u yimi. haddaad reerka soo gashayna waxaa sii jooga dad kale, walaalihiisaa joogi kara guriga, ilmo adeertiisaa joogi kara guriga, faamiligu asaga ka soo jeedaa joogi kara guriga, ma aha carruurtiisa oo keliya. waxaa laga rabaa intaasoo dad, intaasoo ehel, intaasoo qaraabo ah inay wanaag kaa sheegan karaan, aysan xumaan kaa sheeganin. waxaan rajaynayaa in waxyaalo badan oo qaldan oo ilmaha eedada la joogo lagu hayo in laga beddelo. waxaan leeyahay brogaraamkan waa brogaraamkaygii, waa brogaraamkiinnii. maskaxdayda iyo fikirkayga iyo caqligayga xunka ah intii aan ugu talagalay inaan oga hadlo ayaan oga hadlayaa. intii aan ka arkayna waan ka sheegayaa, inta la ila wadaago asxaabta ila wadaagayna waan ka sheegayaa. waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waa beddel, waxa loo baahan yahay waa horumar, waxa loo baahan yahay waa maskax caafimaad qabto. intaa qofka hadduu helana waxba kama maqno. waa anigoo ah warsan sheekh maxamed. waxaan idin leeyahay janalka leega iyo sheerka iyo kommentiga waa xaggeena, wax sheega waa xaggayga insha allah biidni illaahi araxmaan. waa qaybtii saddexaad iyo waalidka kala tegaya carruurtooda maxaa kala haysto. salaamullaahi calaykum, kulan dambe.